Okay, markan haddii aan u baahdo tusaalaan in aan bedelo nambarada qaar halkan ku yaala ama darajooyin qaar oo ardayda la siiyey. Mathalan waxaan samayn karaa haddii aan tiro guud oo gooniya aan rabo inaan bedelo tusaale ahaan tiradan tiro halkan kusoo noqnoqotay aan qaadano maybe aan dhahno 70 oo kale 70 ayaan rabnaa kala gooni ayaan siinayaa si aan u aragno isbedelka hadhow ku imaanaya 70. Okay, 70 meel walba oo aan ku aragno waxaan rabnaa inaan ku bedelno 80. Home ayaan joogaa kadib waxaan aadayaa qaybta ugu dambeysa ee editingka groupkaasi ayaan gelayaa find and select halkay ku qoran tahay replace ayaan ku dhufanayaa. Maxaan bedelayaa 70 halkaasi aad ku qoraysaa maxaad ku bedeleysaa 80. Okay, replace ayaad leedahay all laba meel ayuu bedelay sida uu sheegayo waana kuwaan 80 ayay noqdeen. Inta badan marka aad isticmaalayso Microsoft Excel waxaa la iska ilaaliyaa in aad mouse-ka aad wax soo raadiso waxayna isticmaalaan shortcut-kan find and replace waxaa u adeegsanaynaa Control H si toos ayuu noogu furayaa tirada aan rabno halkaasi ayaan ku bedelaynaa 90 tusaale ahaan waxaan u bedelaynaa 95 aan aragno inta jeer uu bedelo replace all haddaan dhahno 5 qofood oo 90 keentay waxaan u bedelnay 95. waa sida ugu fudud waa Control H in aad doorato. Dadka qaar oo weli uu bilow ku yahay Microsoft Excel ama dokumentiyada qaar waxay ku save gareeyaan marba meesha ay gaaraan balse haddii aad rabto dokumentigan aad hagaajisay inaad meel mucayana oo aad taqaano aad ugu hagaagto aad ku save gareyso waxaad riixaysaa file waxaad leedahay save as kadib waxaad dooranaysaa dokumentiyadoo dhan inaad soo saarto browse ayaan leeyahay. Halkan waxaan ka dooranayaa halka aan dhigayo dokumentigan aan hagaajiyey magac ayaan ku qorayaa waxa aan rabo ayaan u bixinayaa halkaasi isaga bixi mathalan course 1. Okay, course 1 ayaan u bixiyey magaciisa waxaana dhigay desktop save ayaan leeyahay waxaan ugu hagaagayaa desktopka.